Hello YouTube. Please comment below, like and subscribe. You'll know what to do. Well, until then, take care. Abdullahi Ahmed Abubakar iyo Maryan Cabdiweli Axmed oo loo garanog yahay jeesteye iyo habi dadku waxay ku tilmaamaan inay yihiin lamaane xiriir jacayl oo ka dhaxeeyo maadaama muuqaalada qaar ay ka soo muuqdaan iyadoo qof walba uu xiran yahay fanaanad lagu qoray magaca qofka kale taasi oo u sii dheer tahay fahanka sheekada iyo dhoola cadeynta wadajirka ah arintaas horta dad badan ku wareersan sida anaga ka aragnay fiidiyoyada soo dhignay commentigooda waxa aragnaa dad dhahay mar walba lamaanatiin waa isku qurux badantiin waa isku nuuraysiin just like waxa ma jiraan gabadhan garabkay fadhiso asxaabanahay walaalaanahay marka waa kaasa only friends okay sanadiga baray ku jirtay barta TikTok Habi Ahmed ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyn ee u soo gashay aaladan ay tahay in dadku ay ku madadaaliso maadaama ay markii hore muuqaalo kooban ay ku soo duubay jirtay barta Facebook balse hadda waxa uu sii dheer in dhaqaale ay ka sameeyay aaladan iyo sidoo kale dhiirigelin ay ka heshay Master Jeesteye wala horta TikTok waa la isticmaalaa dadka badanaa siyaabo nooc kale oo isticmaalaan laakiin aan waxa u isticmaalaa in dadka ka qosliyo oo u soo bandhigo waxyaabo ay farxad gelinayo markii hore heesaa duubi jiray laakiin muhiim zaid uma ahan laakiin saaxiibkay ugu dhiirigeliyay inaan zaid u duubo oo wax badan aan ku raasado ani waxa u soo galay markii hore inaan magac ka sameeyo laakiin hadii lacag laga helayo waxa ku diidaa muddo kooban ay joogan magaalada Beledweyne Abdullahi Ahmed Abubakar iyo Maryan Cabdiweli Axmed waxa ay aalada TikTok ay ku soo bandhigeen muuqaalo kooban oo xiiso leh waxana ay ka waramayaan ujeedka safarkooda Beledweyne mar hore jeclaa inaan imaado Beledweyne laakiin waqtiga ii diiday maadaama aan rabay marka Beledweyne inaan horumar fiican TikTok ka sameeyo maadaama eesaas ay tahay waxa ku qasbantahay meesha joogtid ina waqti badan aad joogtid marka horumar badan aad sameeysid ka bacdi aad joog soo bedelatid marka inta waxa u imaan ina joog bedelano fikirkana ana iska lahaa